munaasabaddan xil wareejinta ay ka soo qayb galeen xubno kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland siyaasiyiin wasiirada xilalka la kala wareegaya iyo shaqaalaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Dr. Saad Ali Shire waxa uu hayay 5 sanadood intii uu joogay gacanta ku hayay wasaaradda wixii uu qabtay intii uu joogay waxaanu jecel lahay iyadoo islaaris aynu soo deeyno oo halkaan aan ka soo deeyno isagoo ku darsan doona kelmadiisa haddii aan la yiraahdo intii aan wasaaradda wada joognay dhammaan shaqaalaha halkan wada joogno anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha wasaaradda qorsheynta qaranka waxaanu ahayn dad isku duuban dad hal kaliya wada ah dad horumarka u hoggaansan wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa amaanay wasiirkii hore ee wasaaradda hadallo soo dhaweynayna u jeediyay wasiirka cusub ee wasaaraddaasi la wareegaya wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta ahna haatan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa isaguna halkaasi hadallo waana iyo hoga tusaaleyn isku jira ka jeediyay waxaan wasiirka horta marka hore ku dardaarmaya maadaama dad muslimiin nahay cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaloo ku dardaarmaya cadaaladda inuu sugo sharciga waddanka u yaalo oo ku dhaqmo raaco inuu ka fogaado qabyaaladda maxashaleena inuu waqtigiisa inta badan siiyo hawsha iyo shaqada wasaaradda ka socota ee aan aad ugu mashquulin siyaasadda waxaan wasiirka kula talinayaa inuu xiriir wanaagsan oo sokeeye oo wada shaqayn uu la yeesho hay'adaha ajnabiga ee aanu la shaqayn wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta Ali Shombe oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay qaabka uu hagi doono wasaaradda qorsheynta qorshuhu waa nidaam ka dejinta hab horumarineed istiraatiijiyad iyo qeexid dariiqa oo lagu gaarayo yoolka astaysan ee ay bulshada qaadatay horumarinta waa hami iyo higisi ummadeed oo ku salaysan kuna jihaysan yool sugan oo la jaangooyey ku salaysan aragti ay jaangooyeen dhacdooyinka xaqiiqda ah ee bulshada soo maray horumarintu waa nidaam iyo hannaan taariikhi ah oo u baahan in la sugo halka uu ku aadan yahay qodobka kale waxaa sida lagu soo geeyay waa codsigaasoo waxaan ka codsanaya dhammaan bulshooyinka Soomaaliland hay-adaha dawliga ah kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah in ay isku kay garab taagaan hawshaas waxaa kaloo u ballan qaadaya wasaaradaha dowladda iyo kuwa dawliga ah gaar ahaan kuwa dawladdu inay qaataan doorka ay ku leeyihiin planning dalka oo iyaga prioritieskooda ay samaysan doonaan gabagabadii waxay labada mas'uul si rasmi ah ula kala wareegeen dokumentiyadii wasaaradda qorsheynta Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Somali News Hargeysa.